بسم الله الرحمن الرحيم. وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، الله تبارك وتعالى qur-aanka kariimka ah inoogu qeexay oo inoogu caddeeyey sifaadka iyo tilmaamaha ay leeyihiin dadka mu'miniintii, sifaadka oo ay kaga duwan yihiin dadka aan mu'miniinta ahayn, gaalada ay kaga duwan yihiin. kadibna rabbi tabaaraka wa tacaala wuxuu sheegay sifaadkoodii, markuu sheegay tilmaamahooda iyo abaalkoodana ku xijiyay rabbi tabaaraka wa tacaala. wuxuu rabbi yidhi tabaaraka wa tacaala qad aflaxa almu'minuun, dadka mu'miniintii way liibaaneen, abaalkooda iyo natiijadoodu waa way liibaaneen. yay yihiin mu'miniintu? aladiina hum fii salaatihim khaashicuun, waa dadka salaadooda dhexdeeda ku khushuuca. waaladiina hum cani illagwi mucriduun, wixii xun bay ka jeedsadaan. waaladiina hum lizakaati faaciluun, isdaahiriinta naftooda inay daahiriyaan iyo jidkoodana way sameeyaan. ilaa ilaahay sifaadkoodu si uu waday uu yidhi ulaa'ika hum alwaarisuun aladiina yariisuuna alfirdowsa hum fiiha khaaliduun. kuwaasi waa kuwa dhaxla. maxay dhaxleen? ma xoolay dhaxleen? maya, waa dadka firdowsa dhaxlaya buu alla yidhi tabaaraka wa tacaala, oo ku waari doona. sidaas daraaddeed, haddaad doonaysa naftaada inaad ogaato ma mu'min baad tahay mise ma tihid, waxaad u baahan tahay inaad iska dhex raadiso sifaadka qur-aanka iyo sunnadu u sheegeen mu'miniinta. waa inaad naftaada ku miisaanto sifaadkii ma lagaa helay mise lagaama helin, kadibna wixii kaa maqan waa inaad raadiso si aad ugu xaqiiqowdo dadka ilaahay tabaaraka wa tacaala abaalkaa u sheegay inaad ka mid tahay. sifaadkaa marka waxaa ka mid ah waaladiina hum cani illagwi mucriduun. lagwiga iyo waxyaalaha xunxune cadarabaqashka qashinka way isaga jeedsadaan. sida uu leeyahay alxaafid ibnu katiir caleyh raxmat ullah, lagwiga waxaa la yidhahdaa baatil baa la dhaha. wax kastoo baatil ah lagwi baa la yidhahda. waxaa soo gelaya buu mufasiriinta qaarkood siday mareen shirkiga iyo gaalnimadaa soo gelaysa, waana laqwiga ka ugu daran waay. gaalnimada way isaga jeedsadaan. waxaa kaloo soo gelaya macaasida iyo dunuubta aan gaalnimada gaadhsiisnayna way soo gelayaan, oo dunuubta iyo macaasidana way isaga jeedsadaan iyo majaalisteeda. waxaa kaloo soo gelaya buuri hadal kasta iyo ficil kasta oo aan faa'iido lahayn. wax kastoo ama faa'iide adduunyo aan kuu soo jiidaynin oo bannaan mubaax ah, ama faa'iide aakhara aan lahayn, adduunkaaga waxba ku biirinaynin, aakhiradaada aan waxba ku biirinaynin, isagana laqwi baa la yidhaahdaa. intaasoo dhanba way isaga jeedsadaan. waxa ay sameeyaan iyo waxa ay ku hadlaanin waa wax bannaan, waana wax faa'iide leh. majaalista iyo fadhiyada iyo golayaasha ay ka qayb galaani dunuub ma ah, kuwa macaasi ma ah, kuwa gaalnimo ma ah, kuwa faa'iida la-aana ma ah. wax faa'iiday ka helayaan. meesha waxaa ka soo baxaysa ruuxa mu'minka ah intuusan fadhiisanin majliska iyo intuusan falka ku dhaqaaqin buu miisaamayaa. kadib hadday faa'iido uga soo baxdo waa ku dhaqaaqaya, haddii kaleeto ma samaynayo. waaladiina hum cani illagwi mucriduun, waxaasoo dhan bay isaga jeedsadaan. waxyaalaha aan macnaha lahayn, faa'iidada lahayn iyo macaasida iyo dunuubta kulliba ka jeedsadaan.
صفة إله المؤمنين تستيوي تبارك وتعالى. مركلة في سورة تبارك الذي نزل الفرقان، سورة الفرقان. الله تبارك وتعالى وذكرنا صفات كأيليه عباد الرحمن إلهي أدوم مديسة تلمامه يقرأ الشيء تلمامها وحكم إذا إلهي سيئي والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. عباد الرحمن كإلهي أدوم مديسة وجسأليه شندك قليه كواريا مؤمنين تعا وكو الحاضرين زورك متى كما قيل قالها زور محاتها قال لي ما وليد هذا زورك صنمية العابد إلهي وحانا هاي ميل وعابده يا متى قال الشرك كما قيل قالها زورك وحا كرو لي هذا عيدها قالها كما قيل قاتان ما حاضرها زورك waxaa kale culimadu ku fasireen beenta iyo fujuurka iyo wixii macaasiyo dunuub ay ku fasireen ma xaadiraano kama qayb galaano ma fadhiistaano lama wadaagaan dadka ku jira. Allah wuxuu tabaaraka wa tacaala wa idha marru bil lagwi marru kirama. hadday dhacdo inay soo maraan wixii sidaa ahaa majaalistiisa iyo meeshii lagu hayay hadday dhacdo ayagoo dan kale leh inay soo maraan وين سوق قصدين لكن أيوة الصلاة كسب الآن ويمر يا ويطافيان أيوة هو السخوي عليه تبارك وتعالى أيوة هو المنسن وكرام أو صخدي ميشا تالي أو حبك قارن وحنك يسامون بيطافيان عليه تبارك وتعالى وإذا مروا باللغو مروا كراما محاضران ومقستان هذا يتعلو إني أي محوء أي صومرانا وحبا يراتي سامعين كما يراتو إلهي سيدا سلطة الله تبارك وتعالى marka isweydii adiga sifaadka ma leedahay sidoo kale aayad kale rabbi tabaaraka wa tacaala isagoo sifaadkoodii wada fi suurati alqasas saasuu ilaahay ku sugayay tabaaraka wa tacaala waidaa samicuu allagwa shayga xun hadday maqlaan acraduu canhu way ka jeedsadaan hadday maqlaan ayaa alla yidhi hadday dhegtooda kusoo dhacdo waa hadday dhegtooda ku dhacdo leanna waxaa kala duwan samica iyo istamaca ma dhegaystaan alla ma dhihin markay dhegaystaan way ka jeesadaan ma dhihina wuxuu yihi markay dhegtooda ku dhacday maqlaan leanna shayga inaad maqasho iraado iyo doonitaan kaa ama marar badan adoon rabinoon jeclayn buu dhagaaga ku dhacaya marka markuu dhagahooda ku dhaco buu alla yidhi tabaaraka wa tacaala way isaga jeesadaan laqwiga iyo waxaa xun iyo baatilkaasi way isaga jeesadaan markaasay weliba dadkii waxaa hayay waxay ku yidhaahdaan lanaa acmaaluna walakum acmaalukum idinkuna camalkiinaad leedihiin annaguna kaanagaan leedahay waxba isku darsan bay idin soo dhexgeli may beri baan idinkan mahay waxaad haysaanna idinkaan midhihiisa goosan doono abaalkiinaad leedihiin annaguna taanadaanu abaalkeeda leenahay laa nabtaqi ljaahiliin jaahiliin dariiqooda iyo jidkooda raadin mayna bay ku dhahayaan yani dad xun baa jadiga jaahiliinaad tihin jahliga isticmaalka qur-aanka iyo sunnada waxaa loo isticmaalaa aqoon darradu jahli way noqotaa falka xun ee uu ruuxu sameeyo aqoonba ha u lahaado isagoo aqoon u leh oo garanaya xukunkeeda hadduu sameeyo waa jaahil qur-aankaa isticmaalay hadal xun oo uu og yahay oo yaqaano inuu xun yahay hadduu sameeyo waa jaahil wixii xun oo dhan ama aqoon darra ha keento ama yiisa keenoo ruux isagoo garanaya ha sameeyee waxaa la yidhaahdaa shareecadu isticmaashaa waa jahli laa nabtaqi ljaahiliin dhaqan xumadiinan iyo jahligiinan dariiqa aad ku socotaan ma rabno idinla wadaagi mayno sidaasay ku maraan oo ku dhaafaan buu alla tilmaamay tabaaraka wa tacaala sababtu maxay tahay majaalista iyo goobaha xumaanta lagu hayo haddaad ka qayb gasho shaki wuxuusan ku jirin waxa ay hayaan inuu wax kaa soo gaadhayo
وحدي كرت قلبي جاجا وفي أنا وتصنع إن سامين كبعض مجلس حل أو كتب كشيء إن داوع قلبي جاجا سوكا خاصة مجالس الشبهات كأي الشرك كأي الكفر كأي حمان كأي بدعة مركا كتب كشيء قلبي جاجا سامين إن كبعض وبيبيع كبعض يبين لا قلنا أي كان طبعا إن آخرنا دي أي بربوريسوت انحراف توجهك لأن قلوب إلهي كعمين تركي سيكون شراء سوء ظنور رقا نبي قال لنا الدعاء سيوحا وقبض لي اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك سيدة الزناد يقول حاجة كبت الشبهة فبصوت علي إن أريد قم بالدين تالي هلس كيس شالي وإلا ليرى يسوع حي يوم وسواس باقو دعي إنه وسواس كبع واحد كان قرشي حاول دقيستي وأيها الدليرون ملا أن نجرني باللوك تلقليا مواقع أي سنجرني بإسكجليا ورباهن تساوي كده جيسان يعني السوشيال ميديا هواح أي نجرني وحوية أقول يسجد دفاع عن مرة وإسكده جيسان يا مركا وقلبي جيسان جاريس ويلكي وحا وسواس كجلي شبهات كي أي شيعة فافين يسيبها مركي بقلبي جيساتات مركاسا وكشن كيسين الصحابة دي نبي محمد محي أهاي شيخ وحن قويدي محي أهاي صحابة ما قال يا هاي نفسه مسلم بي أهاي محي أهاي الصحابة دي نبي شبهة أي كتورة مجالسنا مركاب قشو مركاب مواقعنا القشو مركاب فريسته قلبي قاقا سامي وزو قاريسا ومن دلالة دنبك أي كتيران شك ملا إلى قيتا القاضي الله وقرآن الكريم كأنه يقول تبارك وتعالى الله كتابك وحو يدين كسو الدكشيي مالها إيا مجالستا لفرديو إله آيات كيسا لغو تشيسيو حمانتا لغو السمينيو هفريسانيها هداد فريستان صوما كوا حمانتا كتيري إذنكو اسكوميت باتين بالله تبارك وتعالى إذنك يأيو اسكوميت باتين كان شيكنا بينتا أولا كان ضدك حمانيا كان دروبتا كتيرا كان تحليلات كباطل كتحليلين كان شوهات كفريا كان وقت قالوا من اسكعك فردو السجا كتيرا يا أريد أمر حبايا يا أمر تجيسنا يا إنكم إذا مثلهم اسكم الباتين هي وكالة بالله تبارك وتعالى لماذا؟ لأن إلهي تبارك وتعالى حبنها القارقة إسجا ينسيه لقاها وحبنا قارقة انتو هو حبنا قارقة قلبي هو حبنك بقو قارسا حبنها إلهي كسيينا سيدا اللقو السيي لقو دين ما يوالا قدر إيمان دونا ولقو الدين دونا سيدا القرآن الكريم كربي روشا تبارك وتعالى مقلك يا أرقى يا قلبك انت بواحد نقدر هو اللي يويديو اللي نكلا حسابتهم ورمحات سمينيس محاد دقيسانيس محاد فيلينيس محاد قلبك كتشري وحبنا قارئة دنكي ونايسنا مركا الله استعمالنا وحوين وخير كوغوين كران حداث دنك حول استعماشنا هلسكا كوغوين يدوكا هي أخرى سيداس درادي باوحا لغا بارمانا إن أينو ميلها أنفريسانا إن يحليالها كقيد قلبنا إذا آت سوفير أو كفير صنو وأدون كني أخرى إذا آل إلى الشر وعلى الكيسان وآل يروغو بضن خاصة المجتمع كان الصومالي كهذا وحقال بضن إن مجالس للسويمات كرمان الصميست كرمان لاسي أيهين كرمان إلهي تبارك وتعالى والقرآن لكي يأنوهي أما هو فائدة الآن خير الله أما الشر يحمام الله ذاتك قار كودو للأسر بعد كيسا ذاتك قار كودو صباح يسوك الله gurigiisuu ka soo galaya mashaquu socdaa ma aqoonku soo barursanaya subaxdii soo galaya subaxdii markuu soo kallaho wuxuu u soo kallahay inuu soo fadhiisto maqaayadaha halkaasuu fadhiisanaya sheeko iyo maxaa la yidhi iyo muxuu yidhi iyo maxaa soo yeedhay iyo taxliilaad iyo dad wax ka sheeg iyo xamo iyo xadgudub
kan markuu ku ka kaco miiska ku xigo haddana qolo kale la fadhiisanaya qoladii markuu ka kaco qolo cusub buu ku sugahayaa la fadhiisanaya subaxdii ninkii soo kalahay duurkaa u galaya isagoo meeshaa maqaaydaa fadhiya adduunye ma faa'iidaysan aakhira ma faa'iidaysan qaar ka mida majaalista lagu qabto waddooyinka dhinacyahooda hadda soo batay oo shaaha lagu cabo fiidkii baa la fadhiisanaya markaasa waxaa lagu gaarayaa 6 saac habeen war maxaa la hayaa ma qur-aan baa la baranaya meelaha digdiisaa la hayaa ma khayr baa laga shaqaynaya ma wanaag baa la isfaraya ma xumaan baa la iska reebaya shaki kuma jira in badan oo ka mid ah waxa ka socdaaya inuu yahay waxaan ilaahay raalli ka ahayn tabaaraka wa tacaala markay ugu yar tahay waa wax waqti lumis markay ugu yar tahay waa wax waqti lumis nabigeenna wuxuu sal alay wasalam min xusni islaami lmar'i tarku maa laa yacni ruuxa islaamnimo wanaagiisa waxaa ka mid ah waxaan faa'iida ku jira inuu isaga tago war faa'iida waxaanu kugu jira waqtigan badan ee luminaysa meesha fadhido waa lagu weydiin doonaa nabigeenna sal alay wasalam wuxuu yihi maalinta qiyaamada addoonku markuu rabbigii ishortaago meeshaa ka dhaqaaqi waayo ay lugihiisu saaran yihiin ilaa 4 su-aalood la weydiiyo 4 su-aalood waxaa ka mid a waqtigaaga xageed ku bixisay jismigaaga iyo jidhkaaga xageed ku baabi'isay maxaad ka shaqaynaysay waktigani marka waxa wey waa xisaab kugu socoto waxaa laga yaabaa dadka noocaas ee dhaqankoodu noocayahoo badan oo mujtamaca ka mid a waxaa laga yaabaa in badan oo ka mid a waa odayaal geeri qarka u saaran waayo waa oday geeri qarka u saaran waa xilligii soomaalidu dhihi jirtay salaada ila taag waa xilligii masaajidda geli lahayn waa xilligii cibaadaysan waa xilligii sahay qaadan lahayn waxaa laga yaabaa in badan oo ka mid ah inaysan aqoonin mabaadi'dii asaasiga ah ilaahay ay ku caabudi lahaayeen qaar badan oo ka mida diintooda wax badan kama yaqaanaan warkaalay fadhiiso oo muddada aad meeshaa ku luminayso baro sidaad ilaahay u caabudi lahayd cibaadada soxo maya in badan oo ka mida carruurtoodii iyo dumarkoodii baa dayacan waajibaadkoodii bay dayacaan waxay shaqo ka dhigteen inay fadhi kudirka iyo majaalista ay taagni kudirka inay taagnaadaan war xageed u socotaan war soo ilaahay lama kulmaysaan war soo ma geeriyoonaysaan war soo ma ogidin waxani in laysaga dambaan doono laysla xisaabtami doono waktiga aad gelinaysaan meelahaas iyo fadhiga macno la-aanta iyo suurka aad ku jirtaan haddaad gelin lahaydeen wax faa'iida leh idinkuna waxbaad istari lahaydeen ummaddana waxbaad tari lahayd haddaad waktigaaga gelin lahayd saacadaha aad meeshaa fadhido haddaad waxbarasho gelin lahayd haddaad shaqo xalaala gelin lahayd haddaad adeega reerkaaga iyo gurigaaga gelin lahayd haddaad adiga danahaaga gelin lahayd wax badan baad guul ka gaari lahayd adiga ummadduna waa ku intibacsan lahayd laakiin daaqaadkeennii waa baaba-een in badan oo ka midana waktigeennii iyo awooddeennii halkaasay ku baaba'day aakhiradeennii iyo adduunkeeniiba waa baaba-een sidaas daraaddeed baa waxaa laga maarmaan ah inaynu xisaabtanno waktigeenna ku xisaabtanno ilahay inaan hortagayna ku talagalno majaalista aad fadhiisanaysa waktiga aad ku bixinayso ka fiirso maxaad ka faa'iidaysaa war maxaad ka soo hoyinaysaa war maxaad ka helaysaa war maxaa adduuno kaaga soo kordhay aakhiro maxaa kaaga soo kordhay xisaabtan haddayna dani kugu jirta ka danayso oo laqwiga noocaas oo kalea ka jeedso si aad firdowso u dhaxasho una liibaanto haddii kale waad khasaari صلوا وسلموا على خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث وردنا إليك ردا جميلا ووفقنا لما تحب وترضى اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت